kulan wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka kulanka wararka qodobada wararkeena xilligan waxa ay kala yihiin ra'iisul wasaare Khayre oo natiijo la'aan soo gabagabeeyay safarkii gaalkacyo dibna ugu soo laabanaya magaalada Dhuusamareeb kulamo ka socda magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne iyo cabsi ka jirta xilka qaadista madaxweyne Waare iyo gudoomiye Cusmaan ciidamada diiwaangelintooda ka socotay magaalada Cadaado oo la joojiyay kadib khilaaf culus mid ka mid ah maleeshiyaadkii ku dagaalamaya deegaanka Ceel Afweyn ee gobolka Sanaag oo hubka wareejiyay farmaajo oo ugaaskiisa kulan gaar ah la yeeshay kalana hadlay arrimo xasaasi ah xubno sare oo ka tirsan al-shabaab iyo maxaabiis lagu laayay degmada Jilib iyo maxay warbaahinta geni ka tiri socdaalkii Muuse Biixi ee muranka badan dhaliyay intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan ra'iisul wasaare Khayre ayaa natiijo la'aan soo gabagabeeyay safarkii magaalada Gaalkacyo dibna ugu soo laabanaya magaalada Dhuusamareeb saddexdii cishe la soo dhaafay ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxa uu ku sugnaa magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug isagoo waday kulamo kala duwan oo uu la leeyahay waxgaradka iyo odayaasha magaaladaasi ra'iisul wasaaraha ayaa la filayaa in maanta uu kulan la qaato odayaasha dhaqanka magaalada Gaalkacyo isla markaana uu soo gabagabeeyay safarkii uu ku joogay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug qaar ka mid ah mas'uuliyiinta safarka ku helinaya ra'iisul wasaaraha iyo ilaaladiisa ayaa saaki gaaray magaalada Dhuusamareeb iyaga oo sii diyaarinaya soo dhaweynta wafdiga ra'iisul wasaaraha oo safar dhinaca dhulka ugu soo ambabaxay magaalada Gaalkacyo ra'iisul wasaaraha ayaa markii uu tago Dhuusamareeb waxa uu kulamo la qaadan doonaa madaxda Galmudug ee ku sugan halkaasi isagoo kala hadli doona xaaladda Galmudug iyo sida ay ku dhici lahayd doorasho loo dhan yahay sidoo kale wararka laga helaya ayaa waxay sheegayaan in ra'iisul wasaaraha uu markii saddexaad u tagi doono magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud si uu u xaliyo tabashada ay qabaan waxgaradka iyo odayaasha magaaladaasi dhinaca kalena kulamo ayaa ka socda magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne iyo cabsi ka jirta xilka qaadis lagu sameeyo madaxweyne Waare iyo gudoomiye Cusmaan wararka laga helaya magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne ee maamulka Hirshabelle ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ka kala socdaan kulamo kala duwan oo u dhaxeeya xubnaha baarlamaanka maamulkaasi kulamada ayaa la sheegay inay salka ku hayaan khilaafka u dhaxeeya gudoonka baarlamaanka Hirshabelle iyadoo la sheegay inuu socdo mooshin laga qorayo gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Cusmaan Bare Maxamed gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabelle ayaa qoraal u diray xildhibaanada Hirshabelle waxa uu ka dalbaday inay si degdeg ah dib ugu soo laabtaan magaalada Jowhar si kulamada baarlamaanka dib ay uga bilowdaan waxaana kulamo looga hadlay arrimahaas ay ka socdaan magaalada Jowhar dhinaca kalena wararka laga helay magaalada Beledweyne ayaa waxa ay sheegayaan in gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Cusmaan Bare Maxamed oo kulamo Beledweyne kula leeyahay qaar ka mid ah xildhibaanada iyadoo shalay uu kulan qada ah u sameeyay xildhibaanada xaalka baarlamaanka Hirshabelle ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa uu ahaa mid aan deganeyn waxaana xildhibaanada qaar ay warbaahinta isku marsiiyeen hadallo kala duwan oo ku saabsan furitaanka kulamada baarlamaanka Hirshabelle uu hakiyay gudoomiye Cusmaan Bare Maxamed iyo inuu jiro mooshin ka dhanaa gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Mr. Cusmaan geesa kalena ciidamada diiwaangelintooda ka socotay magaalada Cadaado ayaa la joojiyay kadib khilaaf culus saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa maanta Cadaado ka bilaabay diiwaangelinta ciidamada la qarameynayo ee ku sugan deegaanada maamulka Galmudug hase yeeshee isla maanta ayaa la joojiyay diiwaangelinta ciidamada sargaal ka tirsan ciidamada dawladda ayaa sheegay in sababaha loo joojiyay diiwaangelinta ciidanka ay salka ku hayso muran ka dhashay tirada ciidamada la qorayo ee ku sugan degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud saraakiisha ka socday dawladda dhexe ayaa sheegay in 200 oo askari ay ka diiwaangelinayaan degmada Cadaado balse saraakiisha deegaanka ayaa sheegay inay hayaan askar intaasi ka badan loona baahan yahay in dhammaan la diiwaangeliyo wararka ayaa intaasi ku daray in isfahan waaga soo kale dhexgalay saraakiisha ka socotay dawladda dhexe iyo madaxda ciidamada ku sugnaa Cadaado ay salka ku hayso tirada ciidamada la diiwaangelinayo ayaa ugu dambeyn keenay in la joojiyo ciidamadii la diiwaangelinayay degmada Cadaado saraakiisha deegaanka ayaa sheegay in aysan aqbali doonin tira aysan ku qanacsaneen in laga diiwaangalsho Cadaado waxaana ay sheegayaan in dawladda Soomaaliya looga fadhiya in magaalooyinka Galmudug ciidamo isla eg laga diiwaangalsho taliyaasha ciidanka xoogga dalka ee ku sugan deegaanada Galmudug ayaa wada qorshe ay ku qarameynayaan ciidanka maleeshiyaadka ee hubka haysta ee ku sugan deegaanada maamulka Galmudug ee bartamaha Soomaaliya saraakiisha ciidanka diiwaangelinaysa ayaa horay diiwaangelin uga bilaabay Dhuusamareeb Balanbal Xeraale Xuursha iyo deegaano kale oo ka tirsan Galmudug markana gobolka Sanaag mid ka mid ah maleeshiyaadkii ku dagaalamaya deegaanka Ceel Afweyn ayaa hubka wareejiyay
labadii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac waxa uu ka dhacay deegaan duleedka ka ah degmada Ceelwaaq Ceel Afweyn ee gobolka Sanaag kaas oo u dhaxeeyay laba maleeshiya beeleed. Dagaalka oo geystay dhimashada in ka badan 20 ruux iyo dhaawac sodomeeyo ayaa waxaa haatan la sheegay in xaaladdu ay tahay mid degan isla markaana qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka magaalada Ceergaabo ay kala dhexgaleen. wararka la helaya ayaa waxa ay sheegayaan in mid ka mid ah maleeshiyaadkii dagaalamay waan kadib ay ogolaadeen inay hubka wareejiyaan si loo xaliyo dagaalka sida uu sheegay mid ka mid ah waxgaradka degmada Ceel Afweyn. odayaasha ayaa sidoo kale waxa ay ku howlan yihiin sidii maleeshiyaadka kale ay dhankooda Somaliland ugu wareejin lahaayeen hubka si loo soo afjiro dagaal beeleedyada ku soo laablaabtay deegaanka Ceel Afweyn. si kastaba talaabadan ayaa ku soo aaday xilli dhawaan madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu amar ku bixiyay in ciidamo kala dhexgala maleeshiyaadka dagaalamay deegaanadaasi hoosaga degmada Ceel Afweyn loo diro. dhinaca kalena madaxweyne Farmaajo ayaa ugaaskiisa kulan gaar ah la yeeshay kalana hadlay arrimo xasaasi ah. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa kulan gaar ah madaxtooyada Soomaaliya kula qaatay ugaaska beesha Mareexaan ugaas Maxamed ugaas Xasan Yarow oo safar ku yimid magaalada Muqdisho. ugaas Maxamed ugaas Xasan Yarow ayaa u soo gaaray magaalada Muqdisho martiqaad uu ka helay madaxweynaha Soomaaliya waxaana la sheegay inay ka wada hadleen arrimaha Jubbaland iyo xaalado kale oo ka jira gobolka Gedo. Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa ugaaska u sheegay qorshaha uu ka damacsan yahay doorashada maamulka Jubbaland ee sanadkan 2020 isagoo ka dalbaday in lagu garab galo rabitaanka dawladda ee qorshaha Jubbaland. ugaaska beesha Mareexaan ayaa madaxweynaha Soomaaliya u sheegay inay ku garab galayaan dhammaan qorshaha uu ka damacsan yahay Jubbaland ee lagu badbaadin karo dadka degan deegaanada maamulkaasi oo wajahaya dhibaato badan. ugaaska ayaa sheegay in dadka ku nool gobolka Gedo iyo guud ahaan beesha Mareexaan ee deegaanka Jubbaland ay dhibaatooyin badan ka tabanayaan maamulka Axmed Madoobe isla markaana ay doonayaan inuu isbedel ku dhaco hoggaanka maamulkaasi. sidoo kale madaxweyne Farmaajo iyo ugaaskiisa ayaa ka wada hadlay dhibaatooyinka ciidamada Kenya ay ka geysanayaan gobolka Gedo isla markaana lagu dhibaateynayo dadka uu ka soo jeedo madaxweynaha Soomaaliya. Farmaajo ayaa ugaaskiisa u sheegay inuu sameeyo dadaalo badan oo arintaasi wax looga qabanayo balse ay jirto caqabada ay ku suurtageli laadahay xal u helida arintaasi isagoo ka dalbaday inay u dulqaataan oo laga warsugo dawladda Soomaaliya. ugaas Maxamed ugaas Xasan Yarow waa ninka ugu sareeya saxiixiyaasha Jubbaland waxaana aad loogu xushmeeyaa guud ahaan Jubbaland. haddii ugaaska ka soo horjeesta Axmed Madoobe waxaa halis ku jira rabitaanka iyo damaca Axmed Madoobe ee hoggaanka maamulkaasi. markana Jubbaland xubno sare oo ka tirsan Al-Shabaab iyo maxaabiis lagu laayay degmada Jilib. faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaya duqeyn saacadihii la soo dhaafay ka dhacday degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. duqeynta oo dhacday xalay saqdi dhexe ayaa lagu soo waramayaa in la beegsaday 4 goobood ay ku sugnaayeen Al-Shabaab. goobaha la duqeeyay ayaa waxaa ka mid ah xarunta degmada, saldhigga xarunta qaraxyada lagu diyaariyay iyo xarun kale ay ku sugnaayeen dagaalyahano la sheegay in loo diyaarinayay inay weeraraan fariisimaha ciidamada Jubbaland iyo kuwa Amisom ay ku leeyihiin deegaanka Baarsan Guuni ee gobolka Jubbada Hoose. ku dhawaad 20 dagaalyahano ayaa ku dhintay duqeynta lala bartilmaameedsaday xarunta degmada sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ila lagu kalsoon yahay. xubnaha la dilay ayaa waxaa la sheegay inuu ku jiray sargaalkii maamulayay saldhigga degmada Jilib oo magaciisa lagu soo gaabiyay Xasan Dheere iyo ku-xigeenkiisa oo lagu magacaabi jiray Macalin Cali. sidoo kale dadka ku dhintay duqeyntan ayaa waxaa ka mid ah dad u xirnaa Al-Shabaab kuwaas oo tiradooda lagu sheegay ilaa iyo 5 qof. dhinaca kale waxaa jira khasaare xooggan oo ka dhashay weerarada kale balse aan la cadeyn karin inta uu leeyahay. lama oga heybta diyaaradaha dagaal ee fuliyay duqeyntaasi hase ahaatee inta badan diyaaradaha Mareykanka ayaa duqeyn ka fuliya koonfurta Soomaaliya. weli ma jiro war rasmi oo ka soo baxay dhinaca dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab oo ku aadan duqeyntaasi. ugu dambeyntiina maxay warbaahinta Geni ka tiri socdaalkii Muuse Biixi ee dalkaasi. warbaahinta dalka Geni ayaa markii ugu horeysay ka hadashay safarkii madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi uu ku tagay caasimada dalkaasi ee Conakry. shabakada media Geni oo ka mid ah warbaahinta dalka Geni ayaa sheegtay in socdaalka madaxweyne Muuse Biixi uu ku tagay dalkaasi ay horseeday in shacabka reer Somaliland si weyn ay u sharfaan calanka wadanka Geni iyo madaxweyne Alpha Conde oo sawiradiisa la sudhay wadooyinka waaweyn ee caasimada Hargeysa. waxaa kale oo ay xustay shabakada in shacabka Somaliland ay si weyn u bogaadiyeen madaxweyne Conde iyo shacabka reer Geni oo madaxweynahooda si maqaam sare leh loogu soo dhaweeyay caasimada dalkaasi. jamhuuriyadda Geni iyo Somaliland ayaa xiriir cusub yeeshay kadib socdaalkii madaxweyne Biixi kuwaas oo la filayay inay yeeshaan iskaashiyo kala duwan oo dhinaca ganacsiga iyo dhaqaalaha ah. guud ahaan warkii aad kala socoteen kulanka wararka waa naga intaa.
fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar channelkan sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan wararkaynu halkani soo gelino waana mahadsantihiin